بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal allah subxaanahu watacaala soonka ha naga aqbalo, acmaasha wan wanaagsan allah subxaanahu watacaala ha naga aqbalo, muslimiinta meel walbay joogaan allah subxaanahu watacaala ha cizeeyo, inta xanuunsan allah subxaanahu watacaala ha caafiyo. maanta waa xalaqadeennii lixaad iyo barnaamijkii ta'amulaadka qur'aaniga ahaa. maanta waxaa la noolaanaynaa suuratulkahfi. suuratulkahfi waa suurad walaalayaal ka koobanta 110 aayadood, aad iyo aad suurad cajiib u ah. sunno ay tahay in qofka muslimka maalinta jimcadaha uu akhristo salaada jimcada ka hor. suuraddan allah subxaanahu watacaala wuxuu ku furfurtay alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja qayima. allah subxaanahu watacaala mahad oo dhan asaga ayaa iska leh. suuraddan allah subxaanahu watacaala xamdigiisuu ku bilaabay, waxayna ka mid tahay suurado 5 ah oo alla subxaanahu watacaala uu ku furfurtay xamdigiisa, sida suuratu lancaam ba aan ku soo marnay, iyo suuratu saba, iyo suuratu faatir, iyo suuratu alfaatixa. alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin. allah ayaa mahad iska leh. mahaddu waa sida shukriga oo kale, laakiin labadooda waxay ku kala duwan yihiin. xamdiga ayaa mahad gudo weyn ah. shukrigana waxaa la isticmaalaa marka qofka uu abaal kuu gudo ama wax uu ku taro ba waxaa leedahay shukran lak, waa kuu mahad celinaya. xamdiguse waxaa loo mahad celiyaa qof wax ku taray iyo allah subxaanahu watacaala mararka qaarkood wax aad adiga u malaynaysa inay tahay dhibaato ama musiibo, haddana waa ilaahay subxana watacaala waa u xamdi naqaysaa. tusaale ahaan hadduu qof kaa geeriyoodo, geeridu ilaa wax lagu farxa ma ahan, allah waxaa leedahay alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin. marka qofka aan fahansanayn luqadda wuxuu leeyahay maxaa alxamdu ah, waxbaba laguma tarine, dhibaataaba kusoo gaartay iyo musiibe. marka xamdigu wixii wanaag ah iyo waxa adiga aad u aragtid inaysan wanaag ahaynba allah subxaanahu watacaala alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin. marka mahadda ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad leh. qiyaamaha markii la tagana hadalka ugu dambeeya lagu hadli doono waa midda oo allah subxaanahu watacaala suuratu ghaafir wuxuu leeyahay وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. بالآدم waa la kala xukumay وقيل الحمد لله رب العالمين. dadka gaalada markuu alla subxaanahu watacaala uu ciqaabo uu dhabar gooyo, alla wuxuu leeyahay faquطica daabiru الqowmi الذiina ظalamuu والحamdu لilaahi رب العaalamiin. suuraة الkahfi alla subxaanahu watacaala wuxuu kaga hadlayaa 4 qiso oo cajiiba oo runtii qisadu ay suuradda aad ugu wareegayso. midda koowaad waxaa weeye fitnatu ddiin, midda labaadna waxaa weeye fitnatu lmaal, midda saddexaadna waxaa weeye fitnatu lcilmi, midda saddexaadna waxaa weeye fitnatu lquwa iyo awoodda. dad lagu imtixaanay diintooda oo ku baasay, dad lagu imtixaanay xoolaha oo ku baasay, dad lagu imtixaanay aqoonta iyo cilmiga oo ku baasay, dad lagu imtixaanay awood oo ku baasay. dhinaca kalena waxaa helaysaa dad diintooda la imtixaanay oo imtixaankii ku dhacay, kuwo xoolo la siiyey oo imtixaankii ku dhacay, kuwo cilmi la siiyey oo si khaldan u isticmaalayo diintii maaragtay cilmigii ku dhacay imtixaankiisii, kuwo alla subxaana watacaala awood gacantooda uu geliyey si khaldanna uu isticmaalay. 4taa waxba alla subxaanahu watacaala wuxuu kaga hadlay suuraddan oo suuratulkahfi ah. wuxuuna sheegay labo maaragtay dad oo lagu imtixaanay, kuwa ku baasay iyo kuwa ku dhacayba. intoodaasba waxaa asal u ah fitnatu dunyaa, adduunka oo dadka lagu imtixaano, oo alla subxaanahu watacaala suuradda bilowgeeda uu ku soo qaatay. alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala markuu ka hadlayay adduunka, inaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan laha linabluwahum ayuhum axsanu camala. yani dadka waxaa lagu imtixaanay adduunka iyo quruxda adduunka iyo milicdeeda iyo ziinadeeda. maxaa saa loo sameeyey? linabluwahum ayuhum axsanu camala, waa fitnada adduunka. wa inaa lajaaciluuna maa calayha saciidan juruza. kadib alla subxaanahu wuxuu galay asxaabulkahfi, dhalinyartii loo bixiyey oo suuradda loogu magac daray. waxay ahaayeen dhalinyaro
tiradoodu 13 12 10 aqwaal badan baa kaga ku jirta laakiin almuhim waxay ahaayeen niman dhalinyaro ah oo ahlu diin ah oo ma aragtay magaalada ay deganayeen boqorkii maamulay iyo dadkii maamulay ay diintooda ku dhibaateeyeen diintooda ay la soo fakadeen markaas waxay dhex galeen meel buura afkeeda uu furan yahay Allah subhanahu wa ta'ala halkaas wuxuu maaragtay ku riday hurdo way saxsaxdeen markaas waxay hurdeen 309 habeen 300 يعني oo sano iyo 9 habeen ba meesha dhex jiifeen waxayna wateen eegaasa marka godkii ay jiifeen banaankiisa ku ilaalinayay intuu lugihiisa saa u dhigtay buu halkaas maartay iska fadhiyay 300 sano kadib ba Allah subhanahu wa ta'ala nafti ku soo celiyay magaaladii ay ka yimaadeen bay ku soo noqdeen mise qofka ma yaqaanaan 300 sano jiil iyo 5 jiil 6 jiil baa lagu qiyaasaa inay ma aragtay gudbeen ilaa jiilku waa 40 sano 50 sano meelaha jiilashii oo dhamaaday dharkii lagu labisanayo isbedelay lacagtii isbedeshay cuntadii isbedeshay dhaqankii wax walba isbedeleen qoliyaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala suuradan uu kaga hadlay iyo say diintooda u ilaashadeen dhalinyarta yararka ah Allah wuxuu leeyahay am hasibta anna ashab al-kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ila al-kahfi godkii bay aadeen nabiga sallallahu alayhi wasallam su'aalahan afarta la weydiiyay reer quraysh baa ku xujeystay waxay yiraahdeen intay u tageen niman yahuuda bay wax ku yiraahdeen war yahuudu ininka ahlu kitaabahu aqoon hore lahaa nin la yiraahdo maxamed baa noo soo baxay su'aalo adag oo mucjiza noo sheegay aan weydiino hal xiraala ah markaas waxay ku yiraahdeen waxa soo weydiisaan dhalinyar yar diintooda la fakaday buur galay iyo xaaladooda iyo laba nin oo maaragtay dhaqaale lahaa oo maaragtay Allah subhanahu wa ta'ala dhaqaale fiican uu siiyay iyo nin walaalkiisa oo dhaqaale aan lahayn Allah uu iskugu bedelay iyo qisadii Nabi Muuse iyo Khadir iyo qisadii Dhulqarnayn Ilaahi subhanahu wa ta'ala marka suuratul kahfi soo dajiyay afarta qisana waa looga sheekay meesha marka ay kahfigaas uu ku yaalay culimada bitahdiid waxay yiraahdaan meel kala duwan laakiin waxa ugu wanaagsan in la yiraahdo godkaas inuu ku yaalay Urdun meesha hadda loo yaqaan ama Jordan Khaliijul Aqaba أصحاب الحجر أن كجسوا شيكين سورة الحجر لأن مركي علماء الفلك الجيولوجي قياسين جودكاس هي مركا قرحة كسر بحيث ماشي وكقبانيسو هي مركا قرحة دعس ماشي كجاديسو هي السكو أدادي جوردن بيرهدين ومعقول صنته ولقى مالك الإنته الله سبحانه وتعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا بيري آيات كويتبنات قصدي marka laga sheekay watara shamsa idha talacat tazawur an kafihim dhat al-yamin markay qoraxda soo baxda dhinaca midigta ka qabanaysa wa idha gharabat taqriduhum dhat al-shimal markay qoraxda dhacaysana dhinaca bidixday kaga aadaysa dhalika min ayati allahi man yahdi allahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida Allah subhanahu wa ta'ala markuu qisada ka sheekeeyay ahamiyada ay lahayd buu Allah subhanahu wa ta'ala noo taabanaya oo ah in qofka muslimka ah diintiisa mar walba wax walba ay kala qiimo badan tahay muhiim ah ma saddex bay ahaayeen shan bay ahaayeen lix bay ahaayeen xagee ku noolaayeen tuuladii deganaayeen cibradu taas ma ahan Allah wuxuu leeyahay sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum waxay leeyihiin afar bay ahaayeen oo eega shan ku ahaa maya shan bay ahaayeen oo eega lix ku ahaa maya sideed bay ahaayeen qur rabbi a'lamu bi'iddatihim Allah ayaa og lambarka saxda oo ay ahaayeen ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا الله سبحانه وتعالى وحول ليه ولبثوا في كهفهم وحي كجرين قدكاس 300 سنين وازدادوا 9 وآيات لباتنية شنات كذب الله سبحانه وتعالى وحو مري لبضي نين والله سبحانه وتعالى وكو امتحان حوله لبنين بيها نين باب بيره يحوله يدقال لسي نين مسكين بوها نينك مسكين كإيمان لها نينكي كلا حولها لسي الشرك يكفر يوحو ليمد يكبراني بالنقض markii dambe ba Allah subhanahu wa ta'ala kana xoolihi ka qaaday kana xoolihi siiyay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku sadeexayay qisadii Nabi Muuse iyo Khadir qisada marka Allah wuxuu ka bilaabay aayada 6aad wa id qala Musa li fataahu la abrahu hatta ablugha majma'a al-bahrayn aw amdiya huquba Allah subhanahu wa ta'ala qisadan wuxuu kaga sheekay suuratul kahfi waxa cajiib in nabigana sallallahu alayhi wasallam uu qisadan oo faahfaahsan هو كيرا فحفاصا سيدة القرآن كجرته وكجه الأحاديث إمام البخاري مسلم نوائي وريين قصة موسى والخضر أيضا فحفاصا ودير وأنا حديث متفق عليه وحين كوريين لبط الطريق أبي بن كعب مكورنا يا عبد الله بن عباس
mar wuxuu leeyahay cabdullahi ibn cabaas aniga iyo saxaabi kalaan waxaan isku qabannay muusaha khadir maaragtay loo soo diray muusihiin reer bani israa'iil ma ahayn iyo waa asagii markaasaa waxaa ka hor yimid ubay ibni kacab saxaabiga jaliilka ahaa cabdullahi ibn cabaas baa su-aasha weydiiyey markaasuu uga jawaabay wuxuu yidhi maya waa muusa bani israa'iil markaasuu xadiidkii oo dhammaystiran u akhriyey ubay ibni kacab riwaayad kaleeto oo isla bukhaari muslim ay warinayaan cabdullahi ibn cabaas wuxuu leeyahay waxaa ii yimid nin taabici ahaayo ka yimid reer ciraaq markaasu wuxuu yidhi ninkii la dhihi jiray nawfal alkilaabi baa wuxuu sheegaya ama maaragtay sheeganaya in nebi muuse uusan ahayn muusihii khadir uu ahaa muuse kaleeto markaasuu cabdullahi ibn cabaas wuxuu yidhi kadaba nawfun ninkii nawf ahaa been buu sheegay markaasuu xadiidkii bilaabay wuxuu yidhi ubay ibni kacab baa wuxuu ii sheegay in nabiga sal alla alay wasalam uu yidhi qiso aad u dheer weeye dhowr jeer buu imaam albukhaari kitaabkiisa ku sheegay imaamu muslimna waa u wariyey wuxuu yidhi suubanaha sala allahu alayh wasalam nebi muuse ayaa maalin maalmaha ka mid a wuxuu u khudbadeeyey reer bani israa'iil markaasuu wuxuu uga sheekeeyey ayaam allahi ilaahi subxana wa tacaala maalmihiisa nicmooyinkii alla uu siiyey reer bani israa'iil imtixaankii alla subxana wa tacaala uu mariyey markuu qisadii aad uga sheekeeyey muxaadaradii aad iyo aad bay u macaaneed dadkii baa ku khushuucay kuwaa u ooyey maaragtay aad baa loogu riyaaqay markuu muxaadaradii dhameeyey baa nebi muuse calayhi salaam waxaa su-aal weydiiyey nin dadkii ka mid ahaa wuxuu ku yidhi yaa nabiy allah ma jira adduunka qof kaa aqoon badan intuu la yaabay khudbadiisa markaasuu nebi muuse intuu dhinacya fiiri wuxuu yidhi maya qof iga aqoon badan ma jiro lanna qof kastoo nebi muuse ahaan lahaa sidaas ku jawaabi lahaa lanna nebi muuse waana nebi waana kaliim ullahi waana ululcasmi min arusul qof kale oo la awoodaha markaa ma jirin markaasaa alla subxaanahu wa tacaala soo canaantay maadaama uusan ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmiga uusan u celinin waxaa habooneed inuu yidhahdo nebi muuse allahu aclam ilaah baa og lanna anigu adduunka o dhan ma garan karo qofka iga aqoon badan maadaama marka uu yidhi qof iga aqoon badan ma lahan alla subxaanahu wa tacaala waa uu imtixaanay nebi muuse markaasuu wuxuu yidhi alla subxaanahu wa tacaala yaa muusa waxaa jira addoon addoommadeeda ka mid ah oo adiga kaa aqoon badan oo jooga meel la yidhahdo majmac albaxrayn ninkaas u tag ka soo baro cilmiga markaasuu nebi muuse wuxuu qaatay maaragtay dharkiisii wuu isdiyaariyey arday yaroo wiilashiisi ka mid ahaa buu kaxaystay oo loo yaqaano yuushac ibnu nuun oo marka dambe nebi noqon doona allah marka wuxuu leeyahay waid qaala muusa lifataahu nebi muuse markuu ku yidhi wiilkiisii yaraa oo ah yuushac ibnu nuun ina kici buu yidhi waxaan raadinaynaa khadir majmaca albaxraynta waa labada bad meesha iskugu yimaadaan culimmada laba meelba way ku sheegaan baxrul axmar meesha hadda la yidhaahdo oo sinai masar ku taalla meesha iska gasho badda cas iyo badda dhexe iskaga yimaadaan majmac albaxrayn halkaa waxaa la yidhahdaa waa meeshii uu nebi khadir uu joogay nebi muusena uu ugu tegey culimo kale waxay yidhahdaan maye waa labada webi webiga niilka oo buluuga ah iyo webiga niilka oo cad meesha ku kulmaan oo khurtuum ah suudaan hadda meesha maaragtay caasimada u ah labadoodaasba waa majmac albaxrayn waa la yidhaahdaa waxay u badan yihiin mu'arikhiinta inay tahay dhinacan sinai oo nebi muuse calayhi salaam uu ku noolaa waana laba dhuloo isku dhow aad uma kala foga nebi muuse waxaa la yidhi majmac albaxrayn aad addoon addoommadeeda ka mid oo khadir la yidhaahdaa jooga halkaas ugu tag oo ya allah maxaan ku garanayaa marka meesha aan taga maxaa calaamadii ah waxaa la yidhi waxaa sii qaadataa kalluun xuut sii qaadaa la yidhi xuutku marka waa un kalluun badda un ku jira ha yaraado ha weynaado xuutkaa soo qaado kari oo shiil intaa bislaysid waxaa marisaa cusbo annaga waxaan u naqaanaa xaniid somalia waxa leedahay xaniid marka kalluunka la dhanaaniyo xaniid xaniidkaas qaado waa la shiilay waana la cusbeeyey wadada kusii qaado meesha khadir uu joogo alla subxana wa tacaala wuxuu yidhi xaniidkaasaa boodaya noloshaa kusoo noqonaysa badduu ku noqonaya meeshaasaa khadir uu joogaa nebi muuse calayhi salaam wuu isdiyaariyey yuushac buu kaxeeyey asagoon ugu dhiibay maaragtay kalluunkii wuxuu yidhi adiga kalluunkan hay markaa weysid ii sheeg mudday socdeen markay daaleen baa meel buura tageen nebi muuse iyo yuushac way sexdeen nebi muuse marka wuxuu ku yidhi haddii uu maaragtay aad weydid xuudkan ama maaragtay xaniidkan ii sheeg habeenkii oo dhan bay hurdeen subxigii markay kaceen oo la xirxiranayay mise yuushac maba hayaba kalluunka
bartaasu intuu ilaahay subxana wa tacaala nafta ku soo celiyey uu booday buu wuxuu ku noqda baddii muusan sii dhex dabaalanin meel dhexe buu alla subxaana wa tacaala ku celiyey si uu u ahado calaamad leanna waaba calaamad soomahan alla subxana wa tacaala ugu talagalay nebi muuse inuu ku garto khadir inuu makaankan joogo. yuushac markuu soo kacay wuu ilaaway inuu nebi muuse calayhi salaam u sheego in maarata kalluunkii uu tegey. markaasuu nabiga sal ly slm wuxuu yidhi way socdeen habeenkoodii iyo maalintoodiiba. marka ay habeen iyo maalin sii socdeen ay daaleen buu nebi muuse fadhiistay wuxuu yidhi yuushacow nasii cuntadeenna aan cunneen. alla subxana wa tacaala wuxuu leeyahay aayadda 61 falamaa balagaa majmaca baynihimaa nasiyaa xuutahumaa faاtakhada sabiilahu fi lbaxri saraba falama jaawazaa qaala lifataahu aatinaa hadaa'ana. wiilkiibu wuxuu ku yidhi war cuntadeenna sii. markuu maarata is yidhi alla ilahay weelkii ka soo saar bal maarata kalluunkii mise maxaa ii dhiibatay. markaasuu wuxuu yidhi waan ilaaway yaa rasuula allah kalluunkii inaan kuu sheego waan ilaaway. laqad laqiinaa min safarina hada nasaba qaala ara'ayta id awaynaa ila asakrati ma xasuusataa yaa nabiy allah inaan habeenkii buurtii seexanay fainii nasiitu lxuut markaasaan ilaaway maaratay. markaasuu nabi muuse wuxuu yidhi na soo celi mar labaad baan noqonayna faاtakhada sabiilahu fi lbaxri cajaba. wadadii bay ku soo noqdeen 2 maalmood iyo 2 habeen bay soo socdeen. markay yimaadeen meeshii kalluunka uu joogay bay waxay arkeen nin meel jiifa go' weyn oo cagaaran huwan. waa meesha marka loo bixiyey nabi khadir loogu bixiyey akhdar waa cagaarkaas go'aas cagaaran weeye oo dadka hadda maaragtay wadaadada qeybaha ka mid ah suufiyada iyo ay aadka ugu labistaan cagaarka khadirka halkaasaa laga keenay. markaasuu marka nabi muuse la hadlay wuxuu yidhi assalaamu calaykum. nabi khadir marka wuu yaabay wuu fiiriy wuxuu yidhi oo ma qof baa waddankan jooga oo dadka salaama. markaasuu yidhi haa adigu kuma ahayd muuse. markaasuu wuxuu yidhi oo muuse waa kuma. muuse marka wuu yaabay waa nebiga keliya markaa joogay oo adduunka dhan laga yaqaano oo caan ah oo macruufa. qof miyaa wuxuu leeyahay ardu siinaa jooga muuse waa qof ma. wuu isku sheegay. markaasuu wuxuu yidhi nakaci muuse aniga ilaahi subxana wa tacaala wuxuu isiiyey aqoon adigana aadan garanaynin adna ilaahi subxana wa tacaala aqoon buu ku baray aniga aanan garanaynin laakiin see ugu dul qaadanaysaa aqoonta anigu aan leeyahay. markaasuu nabi muuse wuxuu yidhi qaala hal attabicuka calى an tucalimanii mima cullimta rushda qaala inaka lan tastaiica macya sabra awood uma lihid aad maarata iigu dul qaadatid wakayfa tasbiru calى ma lam tuxit bihi khubra qaala satajidunii in shaء allahu saabira. waxaa noqonayaa arday dulqaato u wanaagsan. waa fawaa'idda ugu waaweyn aan ka faa'iidaysanayna qisadan. qofka ardayga ah si kastuu darajo u leeyahay aqoon u leeyahay cilmi u leeyahay magac u leeyahay mar haddaa arday qof u tahay dulqaad iyo aadaabtii طalabulcilmiga waa inaad la timaadaa. way israaceen waddadii markay fuuleen bay waxay ka hor yimaadeen doon niman dhalinyaro ay wataan leanna baddii gebigaanay ka joogeen gebiga kale rabaan inay aadaan. doontii markay raacayeen niman dhalinyaraha joogay oo fariidiin ah oo cajiib ah oo nebi khadir aad u yaqaanay. markaas waxay ku yidhahdeen khadiroo soo fuul adiga iyo labadaa nin kula socdaba lacag kaama rabno. way raaceen marka mar allaale markay doontii meel dhexe marayso buu nebi khadir calayhi salaam wuxuu doontii ka saaray alwaaxyadeedii ka mid ahaa buu jebiyey. nebi muuse marka intuu la yaabay khadir wuxuu ku yidhi war ma nimankan aan lacagta naga qaadanin oo aan ujrada naga qaadanin baad ma aragtay doontoodii jebinaysaa waxaas ma abaal baa maxaasaa u samaysay. markaasuu nebi khadir wuxuu yidhi alam aqul inaka lan tastaiica macya sabra miyaana kugu dhihin dulqaad uma yeelanaysa waxyaalaha aan samayn doono. markaasuu muxuu ku jawaabay laa tu'aakhidnii bima nasiitu waan ilaaway markaan ii dulqaado. nabiga sal ly slm xadiidka wuxuu ku yidhi midaas waxay ka ahayd nebi muuse ilaaw hilmaan bay ka ahayd wuu ilaaway nebi muuse calayhi salaam. markii ay ka baxeen baddii magaalada dhex galeen baa waxaa ka hor yimid nebi muuse iyo khadir iyo ciyaalo dhalinyaraho meel ku ciyaaraya. markaasaa waxaa ku dhex jira wiil yaroo iftiimayo qurux badan oo shacni iyo wanaag uu ka muuqdo. khadir intuu wiilkii yaraa aaday oo madaxa qabtay buu madaxii kala jebiyey cunugii meeshuu ku dhintay. markaasuu nebi muuse intuu argagaxay uu naxay buu wuxuu yidhi aqatalta nafsan zakiyatan bigayri nafsin ma naf baad dishay oo aan naf kala dilin bilaa sabab miyaa naf ilaahay subxana wa tacaala uu xaaraan ka dhig u dilaysaa laqad ji'ta shayئan nukra yani wax weyn baad la timid. wuu adkeysan kari waayey nebi muuse calayhi salaam in khadir uu maarata wiilkaa yarkaa uu dilo.
markaasuu khadir wuxuu ku yidhi si kulul markaan ugu jawaabay miyaanan kugu dhihin alam aqul laka markii hore wuxuu yidhi alam aqul si tartiibo khafiif uu yidhi miyaanan kugu dhihin maaragtay dulqaad umalid waxyaalaha aan samaynayo markaas wuxuu yidhi in sa'altuka can shayin bacdaha falaa tusaaxibni mar labaad saddexaad haddaan hadlo maaragtay saaxiiba ma nihin markaas ayuu kaa dambaysay intuu nabi muuse calayhi salaam uu xishooday way socdeen tuulo yar bay tageen dad meel jooga oo maaragtay derbi guri ku dhex jira markaasay yidhahdeen namarti geliya waxay yidhahdeen waxba idin sii mayno kuwii sidaa ahaa baa derbi ka dumay nebi khadir marka wuu kacay derbigii wuu la dhisay wuu la istaajisiiyey maasha allah markaasuu nabi muuse wuxuu yidhi oo dadkaan aana cuntadana siinin oo aana marti gelin oo aana soo dhoweynin miyaa wax u dhisaysaa haddaa wax u dhistid ma xataa tiraahdid maaragtay bejeg igu siiyo lacag igu siiyo aad lacag uga qaadatid markaasuu khadir calayhi salaam wuxuu yidhi haadaa firaaqu baynii wa baynik saunabi'uka bita'wiili maa lam tastic calayhi sabra meeshaana iskugu kaya dambaysa waxaa weye adna waddadaasaan maraysa adna waddadaasaan maraya ma sii wada socon karno muusow markaas wuxuu uga sheekeeyey saddexdii qiso iyo qaabkay ku timid doontii hore wuxuu yidhi niman waxaa iska lahaa masaakiin ah waxaana waddada ku maaragtay magaalada dhinacda kala deganaa nin boqor ah doon kasta oo qurux badan markuu arkana wuu qaataa waxaan jeclaystay inaan doonta meel yar ka jabiyo markuu arka boqorkan uu yidhahdo waxaan doon maahane naga kaxeeya marka waxaan u sameeyey inaan nimankan u badbaadiyo doontooda markaasuu nabi muuse fahmay qasadkii iyo dantii uu ka lahaa khadir uu doonta u jabiyey wiilkii yaraana wuxuu yidhi wiil wuxuu ahaa ilaah subxana wa tacaala uu ku abuuray gaalnimo sidaas uu maarata ugu weynaan lahaa allah ayaa subxana wa tacaala mashiicadiisay ahayd laba waaridoo waaweynna wuu lahaa waxaan ka baqay inuu waaridiintaas uu dhibaateeyo allahna subxaana wa tacaala i amray buurtii gurigii qolkii uu dhisayey darbigii uu dhisayna wuxuu yidhi niman yararoo masaakiina iska lahaa oo agaawmo ah dahab iyo gold iyo waxba ugu hoos jiray waan ugu asturo si aan looga qaadanin arrimihii markuu u fasiray buu nabi muuse calayhi salaam fahmay waana uu noqday nabi muuse calayhi salaam waxaan ka qaadanaynaa marka qisadan kow qofka daaciga ah ama caalimka ah inuu mar walba leeyahay ardaydana mas-uuliyaadka iyo shaqooyinka loo dhiibo sida nabi muuse calayhi salaam wiilkiisii dhallinyarta ahaa yuushac ahaa uu mas-uuliyadda qayb uga daray safarka uu ka qaybgeliyey uu yidhi adiga boorsada qaado cuntada adaa sidaaya weelka adaa haynaya mas-uuliyaad in loo dhiibo dhallinyarta markay yaryar yihiin responsibility in la baro in shaqooyinka wax laga siiyo markay maxadkii dhiganayaan khudbadaha jimcooyinka la siiyo masaajida la yihahdo tujiya dacwatu shaarica ay sameeyaan masaajida looga dhiga maaragtay daaragtaro shaqooyin yaryar loo dhiibo lagu aamino ilaa ay ku soo weynaadaan waxaan kaloo ka qaadanaynaa qisada nabi muuse iyo khadir qofka si kasta uu yahay nebi ama cilmi uu leeyahay qof kaloo ka aqoon badan baa imaan kara adduunka wa fowqa kulli dii cilmin caliim qofka aqoon kasta uu leeyahay waa inuusan u malaynin inuu asaga dadka ugu aqoon badan yahay waxaan kaloo ka qaadanaynaa haddaad aragtid qof macalinku ah inaad ixtiraamtid oo aad u jajabnaatid oo aadaabtii iyo dhaqankii lagu yaqaanay qof taalibulcilmi ah aad la timaadid midda afraad aan ka qaadanayna waxaa weeye khadir ma nebi buu ahaa mise saalix buu ahaa mise weli buu ahaa culimmadu waatay isku maaragtay ku kala aragti duwanaayeen imaamu suyuutina uu yidhi intoodaba waxaa maaragtay culimmada waa laga wariyey waاkhtalafuu fii khadirin ahli nuquul ma weli buu ahaa ma rasuul buu ahaa ma saalix buu ahaa waxaa haboon inuu ahaa weliyun min awliyaa illah kadib alla subxana wa tacaala qisadii wuxuu kusoo gabagabeeyey dilqarnayn oo inta tagay meesha qoraxda ay ka soo baxday haddana adduunka dhexdiisa yimid haddana meesha qoraxda ku dhacday adduunka tegey oo qoomam kala duwan ugu tegey qoomkii ugu dambeeyey oo saddexaad ay ahaayeen qoom yajuuj wa majuuj dadka dhibaateeyey mufsidiin ahaa oo maaragtay dholalkii gubay oo dadkii laayey oo maaragtay liwaadka samayn jiray uu nebi luud maaragtay dulqarnayn uu u dhisay buurta ilaa hadeertaana buurta ay ku dhex jiraan dulqarnayn marka aqwaal kala duwan baa la yidhaahdaa niman culamaa waxay yidhahdaan wuxuu ahaa rajulu mu'minu min aali fircawna qisaduu ka sheekeeyey alla subxana wa tacaala suuratu ghaafir ninkii mu'minka ahaa oo aali fircawn dhexdiisa ku dhex jiray markuu weynaaday wuu tegey ciidan iyo waxbuu samaystay dulqarnayn ninkaasaa la yidhahda kuwaa yidhahda kuwo kale waxay yidhahdaan aliskandar buu ahaa hadal ba aad bay u badan tahay aqwaasha laga yidhaahdo laakiin sida saxdaa waxaa weeye boqoradaas ka mid uu ahaa meeluhuu maray culimmada markay aad wax uga hadleen waxaa la yidhahdaa meesha uu tagay oo qoraxdii ka soo bixaysay waa meesha hadda loo yaqaano juzur maldef jasiiradahan maldefka la yidhaahdo
maldeef oo dadka aadka hadda ugu aadaan dalxiiska waa cornerka dunida dhinaca eastiga ah qoraxdana ay tahay meesha ugu horeysa adduunka ay ka soo baxdo waxaa la sheegaa 2000nadii meelahaas 2000kiina ahayd baan filayaa madaxweynaha Mareykanka Bill Clinton inuu halkaas tagay maaragtay maalmaha ka mid ah madax badan ay tageen halkaas laga fiirinayo qoraxda subaxii markay soo baxday qisadaas Allah subhanahu wa ta'ala si qurux badan aad u macaan oo mucjizo ay ku jirto uu kaga sheekeeyay inna makkanna lahu fil ardi وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وأما من عمل صالحا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا يجوج ومأجوج وحلا ذاك هدي اسوديان بكمته وانا علامات كقيامه واوين markuu soo baxo mahdiga dajaal nabi ciise yajuuj wa maajuuj nabigana sallallahu alayhi wasallam waa uu tilmaamay kuwa yar yar oo iskiimos oo aad u yar yar kuwa dhaxdhax iyo kuwa dhaadheer oo 60 diracani ah intoodaas ba Allah subhanahu wa ta'ala darbigaas ku haya waxaalaha marka cajiibka waxa kamid ah dadyowgan maaragtay iska calmaaniyiinta oo islaamka iyo durdura waxay ku leeyihiin caalamkan hadda adduunka Mars la tago iyo dayax la tago iyo meel walba hadda telescope lagu hayo see loo arki waa meeshii ku jiraan darbiga noocaas waa qayb mutlaq ah weeye Allah subhanahu wa ta'ala ba maarad cilmigaas la kaliyoobay waqtigooda markii la gaaray soo baxayaan Allah wuxuu leeyahay famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba awood uma laha yajuuj wa maajuuj inay darbiga ka soo boodaan famasta'u an yadhharuhu inay ka soo tilaabsadaan ma awoodaan wa mastata'u lahu naqba inay inta qodaan hoos ka soo baxaan ma awoodaan labada kalmood taabay ku galdoon famasta'u ta'male famastata'una ta'bilada kadib ilaahi subhanahu wa ta'ala يوم القيامة أهواشيد وكجها الله هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا معنات قيامها هي أمواج كذا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا مثل خساروبي والله سبحانه وتعالى كهلا يا كوا إن كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الله سبحانه وتعالى وحكسوا جبينا يا ذاتك مؤمنين تعماش ونكسن لجاه لي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا بالليهن كوا مؤمنين عملوا كوناسن ليمد waxay ku dambeyn doonaan jannatul firdaws Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku soo gabagabay aayad cajiiba tawxiidka ah qul inma ana basharun mithlukum yuha ilayya muhammad waxa tirada bashar baan ahay laakiin waa lii waxyooda qofkii rajeynaya qiyaamaha inuu Allah subhanahu wa ta'ala meel fiican gaarsiiyo Allah subhanahu wa ta'ala wanaag ka filaya laba shardi hala yimaado falyamal amalan salihan ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.